السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتا قيمها بدن كحرن جنرال كامين تكنولوجي اسكسونا قدناكسن إن شاء الله تعالى ما أنتو حين قادة دونا عشر كي أودن بيهي كورس كاين امتحانها هاي أي نكوبرنا إني سيدا وبساد لوريسو حقيقة دي وحنا أمسانا هاي هادي أتهاي أرضي نغوت حناي انتو كورس كسوعيي أما أتهاي أرضي ديب نقل سوق قبصدي صودا ودي فيديوياشا inaad dhisi karto website Allah website-ka u baahato sidoo kale waxaan kaaga mahad celinayaa hadii aad tahay arday nagu tixnaay ama aad tahay arday dib nagal soo qabsaday daawashada muuqaalada aynu soo gelinay asxaabta qaar kamid ayaa waxay soo weydiisay sida Visual Studio Code-ka background-ka loogu bedelo insha Allah ta'ala waynu isla daraasii doonaa sidoo kale waxaan idin tusi doonaa website ka caawin doono كود كستو كا قلدمو بس waxaan kugu talinayaa inaad isticmaalin website kan kaliya aad isticmaashid markii aad error bixi waysid insha Allah ta'ala waynu isla daraasii doonaa waxaynu ku hormari doonaa sida Visual Studio Code-ka background-ka loogu bedesho ugu horeyn soo kacso Visual Studio Code kadib waxaad doorataa calaamadda setting-ka dhanka bidxa meesha ugu hooseyso setting dooro kadib waxaa ka sii doorataa setting ka sii dooro setting markaa ka sii dooratid waxaa ku soo bixi doonto qaanadan ayaa ku soo bixi doonto qaanadan waa option badan tahay waxaa dooranaysaa workbench markaad furdid sidoo kale waxaa ku soo bixi doono qaanadan waxaad ka sii dooranaysaa appearance markaad dooratid waxaa ku soo bixi doonto option badan ayaa ku soo bixi doono hoos ayaad u soconaysaa anaga waxa doonaynaa inaan color-ka ka bedelno waxa dooranaysaa color themes fanaxdan ayaa furaysaa kadib waxa dooranaysaa color-ka u baahan tahay soo jeedid baad wuxuu noo noqday waad ayuu noo noqday sidoo kale color kale ayaan ku barabay doonaa hada dag xigeen ayuu noo noqday markaad soo dooratid setting kadib waxaa sii dooran doontaa workbench markaad ka sii dooratid appearance kaliya markaa ku dhahdid waxaa ku soo bixi doonta qaanada option badan tahay waxaad ka sii dooranaysaa color themes kaliya markuu tiraa sida default-ga wuxuu ku soo baxaa dag waa kana default dag iyo default light kan ayuu ku soo baxaa sidoo kale waxaan ku tusi doonaa option kale oo ka fudud adigoo soo marin process-kan dheer waxaad dooranaysaa calaamadda setting-ka kadib waxaad ka sii dooranaysaa color themes ama sidoo kale waxaad isticmaali kartaa shortcut kaasoo ah Ctrl+K Ctrl+T kaliya ayaan ku dhihi doonaa isla qaanadii ayaa noo imaan doonto kadib color-ka u baahan tahay ka dooro color sidoo kale color themes light insha Allah ta'ala waxaan tusi doonaa website ka caawin doono validation error qaladka code-ka soo kacso browser-ka kugu jiro anaga hadda Chrome ayaa soo kici doonaa horta intaan Chrome soo kicin waa kana code-ka inta aan idigu qoray URL code-kiisa http /validator w3 organization kan ayaan copy garay doonaa kadib Chrome ayaan soo kacsi doonaa paste ayaan ku dhihi doonaa mar allaala wixii ku xiran tahay internet-ka aad haysatid markuu san kugu soo kaco hadda waxaan joognaa validator by URL waxaynu ka tagi doonaa validate by direct input kadib code-kii ayaa soo qaadi doontaa inta ayaa geli doontaa anaga hadda code yar ayaanu soo qaadi doonaa Visual Studio Code-ka ayaanu soo kacsan doonaa code yar ayaanu soo geli doonaa code-kan waxaynu soo geli doonaa table adig code ka qaldan oo dhan ayaa soo geli doontaa anaga hadda code dooma qorno wax yar oo kugu tusayaan qori doonaa kadib tr markaan dhahno td daatada
deetana waxaan geli doonaa yaxye magacayga ayaan geli doonaa. hadda tablekan waa table dhammaystiran, balse si aan u ogaano website-ka validatorka uu naga caawinayo waa qaldi doonaa koodkan tddaas ayaan ka tiri doonaa, wax yar erar ayaan geli doonaa. waxaa shardi ah website-kaada dhammaan inaad soo qaadid contact ku jirto, copy ayaan soo wada dhihi doonaa. kadib waxaynu imaan doonaa Chrome-ka, bartan ayaan waxay geli doonaa koodkayna ayaa paste ku dhihi doonaa. markaan saan koodkayna paste ugu dhahno waxaynu dhihi doonaa jag markaaynu dhahno koodkayna saan nuu soo bixi doonaa. hoos ayaan u digi doonaa, inta resource ay ku qoran waa iska akhrisan kartaa laakiin muhiim maahan, balse waa kana meesha uu highlight noo saarayo. waxaad tigi doontaa document checking complete, si dhamaystir ayaa lagu jeekimay. sourceskaadina waa kana, errorkana waa kana highlight ayuu noo saaray. t keligeed waa kana, tdana waxaa ka maqan, d ayaa ka maqan, t data inta ayaana kasii akhrisan kartaa. waa kana inta waxay dheg soo kaleeto markaad dul tagtid adiga ayaa fahmi doona. waa kana t keligeed meeshaas waxaa ka maqan d, wuxuu noo saaray highlight. meesha error ka jiro ayuu wuxuu kuu saari doonaa highlight ayuu kuu saari doonaa. kadib koodkayni ayaan ku laaban doonaa. koodka markaad ku laabatid errorka meesha ka jiro waa soo aragtay, waxa ka maqan ayaana la dhahay d. waa kana meesha ayaynu d geli doonaa, waan save garin doonaa. hadda koodkayna ayaanu qaadi doonaa, website-ka ayaanu ku laaban doonaa. intaan waan iska tiri doonaa un baahnin, kadib jag ayaanu dhihi doonaa. saa u jeedidba hadda koodkayna waa noo saxayay. waa kana meeshu highlight-ka noo saarayay, hadda waa saxan tahay. marka waxaan kugu talinayaa inaad isticmaalin website-kan markasto, kaliya aad isticmaashid marka aad bixi waysid koodka. cashirkan inta ayaa kusoo khulaasaynaynaa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.